bismillahi raxmaani raxiim cashirkan hore waxaan ku soo qaadanay sidaan u refactor gareynayn ama ugu bedel lahayn codeskeeni ama colorska iyo navigationkeena. Hadda waxaan ku soo daranaa qaybtii content area-dii soo halkan ay imaanayna waxaan ku soo daranaa class la dhaho sectionka waa ubuucdi guud waxa hoos tagaya article class article wuxuu yeelanayaa laba waxyaalood image iyo content soo div class content ayaan sameynaa maadaama contentigu uu san lahayn semantic meaning. halkan waxaan ku soo darayaa h1 ama h2 oo ah post title 1. xagga waxaan ku soo darayaa paragraph. qoraalkan waxaan ka soo gudbinayaa website-kan la dhaho Lorem Ipsum copy. paragraph markaan soo koobigareeyo waxaan kala u baahanahay xabad h4 ah ama header ay tahay date posted December oo kale. inta markaan sameeyo waxaan kala u baahanahay image source-kiisu wuxuu ka soo qaadanayaa images folder la dhaho slash html.png image kala dhaho class aan siinaya la posti image si aan hadhow gaar ugu target gareeyo. alt text oo ku soo dari kartaa laakiin no problem. inta markaan sameyno ujeedada halkan waxa ku soo darsamay image iyo post title. inta markaan sameyno intaan ayaan target gareynaa css-keeda ayaynu wax ka bedeleynaa. waxaan marka ugu horeysa target gareynaa sectionka uu ku dhex jiraan waxaan oo dhan maadaama sectionka hadhow sii dhex gelin doono container. sectionka marka waxaan leenahay marka ugu horeysa widthkiisu ha ahaado 70% containerka ku dhex jiro 70% ha ka ahaado. sidoo kale waxa uu sameeyay padding dhinac walba 20 pixel kheelay durki soo sectionka u jeedaa inuu ka durkay containerkii 20 pixel oo afarta koona ah maadaama aysan wax ka sareeya aysan jirin. waxaan kaloo target gareynaynaa article-ka uu sectionka ku dhex jiro. sectionka waxaan kaloo dhihi karnaa float left laakiin hadda hadaynu float ku sameyno footer-ka ayaa kor imaanaya soo float left hadaynu dhahno footer-ka ayaa kor imaanaya u jeedaan soo float-kan halka ayaynu xasuus ugu reebanaa comment ayaynu ka dhigaynaa hadhow ayaynu float gareynaa. article ayaynu leenahay oo ah sectionka article-kii hostigii ama postigii. article-ka waxyaabahaynu ka bedelinaa waxaa ka mid ah background ayaynu siinaynaa. background-ka waxaanu ka dhignaa midabka mar walba isticmaalno f1 hadda aad u arkamaysid. waxaan kaloo siinaynaa article-ka margin bottom waxaan u siinaynaa waxa weeye si uu article kale hadduu meesha yimaado uga durko 20 pixel oo xagga hoose ah. hadda uma jeedid laakiin haddaynu intan koobi garayno article-kan oo dhan oo hoosteeda keeno waxaa ujeedaa labadan waxa u dhexeeya 20 pixel soo labadana 20 pixelkooda saas ugu kala reebayaa. waxaan kaloo sameynaa content ayaa jiray oo article ku sii dhex jiray content-gana isagana maadaama qoraaladii iyo wixii article ku dhex jiray yihiin waa float garanayna float left ayaan leenahay. widthki waxaan siinaa 50% maadaama containerka guud uu ahaa 70%. sidoo kale margin left waxaanu ka durki doonaa image-keena waa eegaynaa waxa margin left-keena noo qabanayso. aynu marka hore bal post image target gareyno oo ah image-kii ay postigu wadatay isaga laftigiisa float left dhinaca bidix inaan keeno. widthkiisana aan siiyo 40% maadaama 50% ay qaadatay contentigu. inta yar soo hadhayna waxay noqonayaan marginska. inta markaynu ku sameyno u jeedaan labadan post si isu dhex galeen. haddaan kan xataa image kala siino oo image-ka aynu siino css oo image ah inoo yaala folder-keena si isu dhex galeen waarta. marka aynu isticmaalnaa css clear fix. intaynu class-ka soo dhex gelin oo aynu soo qaadanaa css clear fix hack oo labada article kala reebaysa soo waxaynu geenaynaa global area-deena waa class oo pseudo elements ah oo kala reebaysa labada class. soo hadaynu class-kan article ku darno class la dhaho clear fix oo ujeedaan inuu ku fadhiisanayo space-kiisi in kan kalena hadaynu siino class la dhaho clear fix oo ujeedaa inuu kii kale ka tegay. soo mid walba wuxuu ku fadhiyaa space in leg ayuu ku fadhiyaa.
waxaan badinay image-yada yaryaraadeen soo image-yada aynu target garanayo iyaga laftigooda. So post image widthkiisa waxaanu ka dhignay 40% ayaan ka dhignay. Sorry, height-na waa sameynaa minimum height oo soo ujeeda hadda sida post walba ugu fadhido space u leedahay. So haddana 200 ka dhigno oo haddana haddaynu ka saarno waxa la dhaho clear fixka class-ka la dhaho aynu comment ka dhigno ujeeda post-yada say noqdeen si isku dhaxayaan ujeeda. So clear fixka waxa ku qabanaysa class walba inuu clear path dhinac walba layout-ka ku soo celiyo normal value qaabka original-ka ahaa. inta markaynu sameeyno waxaynu ugu dambeyn si dhexgalaynaa waxaan oo dhan class la dhaho main class la dhaho main oo aynu rabno in dhexda ku geeyno elements-keena oo dhan. xaggan waxaan ku xidhnaa main section-ka xataa wuxuu hoos tagi doonaa main. halkan waxaan ku target garanaynaa main waxaan ku soo dari doonaa margin 0 top iyo bottom iyo 5% inuu ka soo dirko hareeraha left iyo right. ugu dambeyn waxaan ku sameyn doonaa overflow kabacdi waxaan leenahay hidden si elements-kiisa haddii la float gareeyo uu caadi u noqdo. section-kan waxaan leenahay float left maadaama ay main ku dhex jirto. So haddaynu postigan refresh garayno okay waa kan dhinac walba wuxuu ka soo dirkay 5%. sidaan kuu fahansiiyo haddaan main-kan ka reebo overflow-gan waxaa ujeedaa inuusan garanahayn size-ka elements-kan la float gareeyay oo ahaa section-ka. sidaa darteed waxaan ku soo darayaa overflow. sidoo kale section-kan waxaan float left u yidhi hadda waxba isbedeli maayaan laakiin hadhow haddaan u baahdo inaan halkan sidebar ku soo daro sidebarkaas ii shaqaymaayo ilaa aan float ku sameeyo section-kaygan. marka qaabkaas oo kale u shaqaynayaa aad iyo aad ayay u mahadsantihiin waa inay casharkana dambe.